كلمة ganacsatada afkooda waxaan siinay Ismaaciil Cabdi Xasan oo afar ganacsatada ku hadlay. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وهرين مدحونا جمهورية الصوماليلاند مدن موسى بيه عبدي الوزير هذا البريد سابقة مايركا عاصمة مقالة القدومية تهبشيل حاج محمد سعيد دعاله مرت شرف تكله كسر قيب كشيء إن لا تشوكته bahda doos oo shaqaalaheedii halkan inala joogaan dhamaantii waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. runtii waxay ka mid tahay hawshan aynu maanta joognaa horumarka ka socda waddanka ayay ka mid tahay mid ka mid ay tahay runtii waa hawl aad loogu farxo waddankeena maaragtay maanta waxa ka socda ee aynu arkayno inuu joogno taasoo maarag ka mid tahay محمد سعيد دعاله runtii wax badan buu wadanka ka qabtay oo ka mid ahaa horumarka wadankeena amba dhaqaalaha maaragtay uu ku koreeyay wax badan buu ka qabtay waxaanay ka mid tahay baahiyahaas mar walba baahida dabasha baahida soo baxda sidii loo dabooli lahaa ayay maanta taraynu u joognaaye doos ay ka mid tahay oo runtii wax maaragtay wadanka ay ku soo kordhisay waxa ka mid ah labadii sano ee u dambeeyay imika ay shirkadan abuureed waxa ka mid ah waxyaabo badan oo aan hore u ooli jirin berbera in la keeno oo ka mid yahay jadeewanku oo maanta aynaan meel kalena u doonanahay ee aynu ka doonanayno berbera laga qaadayo waddanka oo dhan laga waraabinayo waa wax ku soo kordhay oo runtii aad iyo aad loogu farxo waxaanay ka mid tahay inay nagu soo dhiiradaan maadaama maalgelin intaa leeg la geliyo inay dad badan oo ajaanabi nagu soo dhiiradaan markaynu hantideena gelino hantidaasay u hureen محمد سعيد دعاله iyo maaragtay reer dahabshiil iyo dadka kale ganacsatada ah ee maal gashaday ee wax galiyay waxay u horeen inay dad badan ay nagu soo dhiiradaan ay ka mid ahayd shirkadii maalmihii dhaweed la furayay waana sii kordhaysaa waana la tartamaya sida ay sheegeen runtii waxaanu anagu ku faraxsanahay oo kala shaqaynaa qaybaha shidaalku waa shidaal tayo leh waana shidaal maaragtay ku filan wadanka waana shidaalkii loogu talagalay adduunyada laga isticmaalayo shidaalka la keenay baahiyo badan oo jiri way daboolmeen marka waxaan isleeyahay baahi badan bay dabooleen aad iyo aadna waanu ugu ducaynaynaa wadanka horumarka uu ka qayb qaatay xaajigana si gaar ah ugu ducaynaynaa waa odayga imika ganacsatada runtii waa nin aad iyo aad u qiimo badan isaga iyo maaragtay dhalinyaradiisa rag waa islaaleegiin rag baaba la leekaaday imika oo ninkii halkan joogay Cabdirashiid waaba isleegiin marka raggaas oo dhan runtii dariiqa uu ku agaano waa wanaagsan yihiin dad badan oo aqoon leh oo tayadeedii lena way joogaan oo nu wada shaqayno xidhiidh naga dhaxeeyo marka waxaan leeyahay waan idin ducaynaynaa runtiina waa madaxweynuhu uu nagala soo qayb galay uu nala joogo inoo furay ducadaana waa ku ducaynayaa annana waa ku ducaynaynaa waanaanu soo dhawaynaynaa aad iyo aadna waa u mahadsantihiin ka soo qaybgalayaashiisa dhammaantiinna waxaan leeyahay baahi badan way dabasho wixii kale dhimanna waa la dabooli doonaa xaajigana waxaan leeyahay nagala hadhine wixii kale fursadaha kale furana nala daba joogun insha Allah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.